kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo wararkii soo dhacay intaynu kala maqnaynaynu barnaamijka ku faahfaahinayna dhowr qodob oo muhiim ah oo soo kordhay aynu barnaamijka caawaydi kula wadaagi doonaa ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa ciidanka sida gaarka u tababara kumaandooska Iiraan ee hoostaga ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay sheegeen caawa inay sameeyeen maalmo ka hor hawlgal ay wadan kale inta ku galeen qolyo abaabulayay weerar inay ku soo qaadaan Iiraan halka ku soo qaramsaday kuwana ku soo kaxaystay hubna ka soo furtay waliba meesha hawlgalkaasu ka dhacayana saldhig Mareykan ku leeyahay ku yaala sheeka cajiiba soba haddaba meeshu waa halkee waa Kurdistaanta Ciraaq Kurdistaan ayaa ku yaala saldhig Mareykan ku leeyahay maalin hore waxaan ku soo qaadanay barnaamijka Mareykanka oo wuxuu sheegay Kurdistaan waa isaga cararaawi aniga waa la yaabanaa waxaan lahaa Kurdistaan weerar badanna kuma dhicine ninkan muxuu uga cararaa meesha ilaa hawlgalkan markuu dhacay ayuu macalinka weyn saas u jiray isagoo soo taagana inta kumaandooska Iiraan Kurdistaan galeen kuwa Kurdiyiina oo Iiraan loo abaabulayay Mareykanku hub siinaya inay Iiraan soo galaan rabay intaysa Iiraan soo galina gudaha inta loogu tagay Arbil iyo dhulkaas ayaa la soo qaramsaday oo fiirsada hubkiina waa laga soo qaatay ayagiyo noolna qaar la soo qabtay kuwa kalena waa la soo dilay American maxaa yaal marka agtiisa xaafadii dariska laga ugaarsanaya bay saldhigii ilaa Mareykanku saas uu uga cararay hadda ogaaday haddaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee soo kordhay waa tahay wakaalada wararka ee Anadolu ayaa goordhow qortay warbixin ay leedahay Iiraan waxay sheegtay inay fulisay 14 hawlgal oo dhulka ah oo markaa ka dhan ah kooxo mucaarad ku ahaa kuwaasoo ku sugnaa waqooyiga Ciraaq haddaba warbixintu way sii socotay waxaa la leeyahay la taliyaha ciidanka Iiraan nikolina Mujtama Shafari ayaa maanta Isniina wuxuu si rasmi ah daboolka uga qaaday u sheegay guutooyin ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Iiraan inay fuliyeen 14 hawlgal oo dhinaca dhulka ah iyagoo ku weeraray kooxo hubaysan oo ku kacsan nidaamka Iiraan kuwaasoo lagu abaabulayay magaalooyinka Sulaymaaniya iyo Arbil ee ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq haddaba warbixinada ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamadaasu ay halka galeen isla markaana ay ka hortageen weeraro lagu soo qaadi lahaa Iiraan goobaha la weeraray ee Sulaymaaniya iyo Arbil ayaa lagu bartilmaameedsaday kooxahaas oo la sheegay in qaarkood la dilay qaarna nolosha lagu soo qabtay hubkoodina qaar kamida ay soo qaateen kumaandooska Iiraan haddaba ciidamadan kumaandooska ee hawlgalka ka qayb galay ayaa waxaa yiraahdaa kumaandooska koofiyadaha cagaaran waa ciidanka sida gaarka u tababaran ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ka tirsan haddaba goobaha weerarku uu ka dhacay ayaa la sheegay inay saldhigyo ku leeyihiin ciidamo shisheeye oo uu Mareykanku horkacayo kuwaasoo ku degan halkaas magaca isbahaysiga la dagaalanka kooxda Daesh haddaba weerarkan ayaa la sheegay inuu dhacay intii u dhaxaysay 8 iyo 24 bishii Luulyo ee dhamaatay 14 weerar ayayna halka ka furiyeen haddaba waxay sheegeen saraakiisha Tahraan in ciidankii hawlgallada sameeyay ay dib ugu soo laabteen fariisimahooda iyagoo aan la kulmin wax khasaara sida la yiri way marka hawshaasu marka iyaduna halkaas maraysaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay ayay ka mid tahay marka waxaa leeyahay kumaandooska waa kumaandoos yaable waa leeyahay xuduudkay ka gudbeen halkaasay tageen meeshaasay hawlgal ka sameeyeen daday soo xireen dibay waxay ugu soo laabteen Iiraan 14 عمليات والولاية 14 هولقل أيها لقى سميي ماشي انتي قلنا حيسي 8 إلى 4 لا تكبش بركا
sheeko runtii aad cajiib waay waa war la yaab la waay marka warkaasu isaguna wararka cusub ayuu ka mid yahay dhanka kale waxaa la sheegayaa ninkii Trump ahaa wuxuu ku wareeray Iiraaniyiinta saake waxaan idin sheegay inay jirtay sheeko ku saabsan inuu yiri caawa fiidka waxaa kulmaya Iiraan iyo Mareykanka oo wada hadlayaan waata Iiraaniyiintu saaka Iiraan warniku been badanaa beentis way dheh ninka marka saaka wixii anaga aan ogeyno isagu hadda soo ogaado wuxuu leeyahay nimanka been ay sheegeen nimanka waxay yiraahdeen kula hadlayna waxay ila hadlayaan male way laba wajiilayaan waaw afku furtay haddaba marka aan idin tuso sheekada ku saabsan Trump iyo xaalkiisa haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin ka qoray wuxuu leeyahay Trump wuxuu yiri hoggaanka Iiraan waa mid aad u khiyaano badan uu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu yiri waxba lama gaari karaan Iiraaniyiintu haddii aan rabno haddii aysan jirin heshiis ama isdhiibid buuxda kula wuxuu sidoo kale sheegay hoggaanka Iiraan waa mid aad u wajiyo badan waxay codsadeen kulan kadibna waxay sheegeen inaysan wax wada hadalaba ku jirin Iiraan waxay codsatay inay wada xaajoodka ay nala galaan kadibna waxay sii wadaan kula inay markaa ku celceliso sheegashadeeda caadiga ahayd oo ah in ay iyadu xoog ku haysato marin biyoodka Hormuz haddaba wuxuu yiri gacanka Hormuz annaga ayaa si buuxda gacanta ugu hayna Iiraan weligeed ma yeelan doonto hub nuclear marka odaga waa khalkhal odaga saakaydo hore wuxuu lahaa baarati barnaamijka ku soo qaatay waa la socotaan saaka wuxuu yiri caawa fiidka la kulma Iiraan isla markii u jawaabto waxay teroorinka been badan wax ka jira bale warkiis ninka markaa beekii la gaaray nimankii ma kulmeen bayay nimankii waxa saasi taageerayeen warnimo ku been badan marka marka la wareysanayo mugta waxa la ninka dada been u sheegay sidiisaba dhigtaa loogu sheegaa Iiraaniyiintii way soo dhiibeen Sacuudiga ayaga waxay leen hawsha naga joojiyo ninka saasa leeyahay ninka waa la seexinaa marka wixii marka loo sheego soo qeylaa Iiraan laftirkeeda na bariday wada hadal aan kula jirnaa oo dhaha hadda marka uu soo baraarugay wada hadalkii fiidkii uu dhahay wada hadal bedel Allah nimanka waa diideen ayaga waxay leeyihiin Hormuz annaga haysanayna ninka warkiis wax ka jira male hadduu marka qayla nimanku waa laba wajiilayaal waa saar marka cabaadkiisa ninka halkaas maraya leeyo baxaya waaye arinta ugu dambaysa waa arin runtii aad u xiiso badan waaye Iiraan waxay sameynaysaa lagu leeyahay isbahaysi loogu talagalay wadamada Islaamka isbahaysigaas waxay ugu baaqday inay ka qayb galaan Turkiga Saudi Arabia Pakistan iyo Masar iyo ayada iyo Iiraan shan in lagu bilaabo shaqadayna waxa way yiraahdeen nimankan meeshan naga burburinayo mar walba dalalka Islaamka inay burburiyaan raba aan mandiqada ka xaaqno annaga markaas aan mandiqadeena nabadgelyeena hawsheena iyo tartiibteena dawladeena Islaamka aan tartiib u noolaan waxaan iska dhaxsaarno qashinka aritaan marka dhagaha la taago waa la yaab mudooyinka waxa socday sheeka ku saabsan Pakistan iyo Masar iyo Sacuudiga iyo Turkiga inay isbahaysi sameeyeen Iiraan marka waxay taagantaa warkiina waa cagajida kan soo gal ana aqaan nimankan sida loo kawiyo aan meeshan wada galno isbahaysiga haddaba marka aan tuso warbixinta laga qoray sheekadaas jiradda la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa waxay leedahay Turkiga iyo Sacuudiga iyo Masar ayay Iiraan u soo jeedisay inay ka qayb qaataan arinta ku saabsan isbahaysi amni oo dawladaha Islaamku ay leeyihiin haddaba wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi Iiraan mas'uul u hadlay oo la yiraahdo Said Majid ibn Rida ayaa sheegay in markaasi gobolka laga sameyn doono isbahaysi ay ku wada jiri doonaan Turkiga Sacuudiga iyo Masar iyo Iiraan in markaa laga shaqeyn doono kaasoo la sheegay in wax badan uu ka tari doono isbahaysigan arrimaha ku saabsan xiisadaha gobolka ka jira iyo in dawladaha Islaamku ay isku soo dhawaadaan haddaba Iiraan waxay soo jeedisay Iiraan isbahaysi amni oo Islaam ah oo ay ka qayb galayaan dawladaha kala ah Turkiga Pakistan Saudi Arabia Masar iyo Iiraan waxay leedahay marka waxaan
lagama maarmaan ah in hawshaa la qabto waxaana durbaba bilowday telefoonno wasaaradda difaaca iiraan ay kula hadashay turkiga iyo dowlado kale haddaba arrinkaa ayaa socda haddaba waa sheeko cusub iyadana iiraan marka dhanka diblomaasiyadda iyo abaabula bilowday war annaga aan isku xirnaanay taagid waayahay magaalada muqdisho waxaa ku jira professor shaafici oo ah falanqeeya siyaasadda arrimaha caalamka inta badanna barnaamijka nagala qayb gala professor shaafici sheekadan cusub ee ay iiraaniyiintu keeneen isbahaysigan sidee kula muuqdaa bismillaahi nadaara mahadsanid iiraan inay soo bandhigtay in muslimiintu ay samaystaan xulafa طبعا ay ka kooban Sacuudiga Turkiga Masar وطبعا ayna sidoo kale ku jirto Pakistan waa arin muhiim ah ma ahan طبعا soo bandhigid ma ahan waxa waa arin oo طبعا la soo bandhigay kaliya ma ahan waxa ay xaqiijinaysaa maadaama ay dalal kale uga horeeyeen oo ayagu yiraahdeen waa in la sameeyaa alliance sida طبعا NATO oo kala waxay cadeynaysaa reer galbeedku NATO inay ku fashilmeen ilaalinta iyo nidaamkii adduunka ee ayagu sameeyeen haddana burburinayaan طبعا taas oo loo soo qaadan karo Mareykanku inay mar yiraahdeen jananka magaciisa waan iloobay 7 wadan ayaan burburinaynaa 5 wadan 5 sano gudahood Soomaaliya ugu horeysay Iiraan baan ugu dambeeyso hadda dalalkii la burburiyay dhamaan waxay ahaayeen dalal muslim ah marka haddana dalalkan ay hadda Iiraan طبعا wasiirka difaaca Rida uu soo bandhigay oo la hadlay wax uu la hadlay Sacuudiga iyo Turkiga marka dal walbana wax uu soo gudbinayo oo heesta ayaa jira طبعا dawladda Turkiga tiknoolajiyada ayay aad ugu fiican tahay iyo warshadaha iyo droniska Iiraan waxay ku fiican tahay difaaca waxayna aad u baratay sida loo dagaalamo reer galbeedka Sacuudiga xagga dhaqaalaha weeyaan Masar ciidankii iyo xaggaas Pakistanna ayada ayaa wada difaacaysa waxa kale uu sheegayaa yani hadii ay suurta gasho xilfigan hadii uu suurta galo waxay noqonaysaa xurriyad physical ahaan muuqaal ahaan muslimiintu xor bay ahaayeen laakiin طبعا gumaysi bay ku jireen dagaalkii labaad kadib ama markii la yiraahdo Cusmaaniyiinta markay burbureen marka hadii hal dal la weeraro waa ayaga oo la weeraray kuwa kale طبعا marka waxa la soo qaadan karaa meelaha la soo qaadan kara dalkii la burburiyay waxa kamid ah Falastiin Iraq Liibiya Suuriya waxa soo dhan waxay burburiyay waxay ahayd reer galbeedka marka taasina waxa la dhigi karaa reer galbeedku waxay u joogan kaliya inay cunaan inta ugu dambeysana Israa'iil inay hadda muhaddadku ku wada tahay dhamaantood ay طبعا oo hadda dagaalkii ugu dambeeyay waxaad arkayseen in مناطق آمنة ay ka sameeyeen si buffer zone meela طبعا aan loo soo dhaafi karin Suuriya iyo Lebanon taasna waxay ku tahay yani sidoo kale yani Soomaaliya meel kamida waan aqoonsaday ay tiri taasna waxay khatar ku tahay dhamaan caalamul islaam oo dhan dhinaca kale say ku suurta galaya dadka qaar waxay isweydiinayaan Mareykanka diidaya Mareykanka isaga dhigbax baa ku socda oo waaya xaq waxa weeyaan ilaa 3 goobood bay wax uga furan yihiin Ukraine oo طبعا wali aan xalismin xagga Taiwan oo kula dagaalamayo Shiinaha iyo Israa'iil marka ma awoodo jabha cusub inuu furo marka taasna maadaama haddaan ku darsano caalamkiiba hadda inuu isbedelayo oo nidaamkii la sameeyay dagaalkii labaad kadib maadaama uu burburayo waqti sax ayuu yimid ayaa la leeyahay maadaama marka dalalkan hal dal keligii waxba ma ahan oo dal walbaba awood buu leeyahay ayaa marka la dhihi karaa waa tahay isbahaysi kala jiray sidaad ogtahay hore looga shaqeynayay Pakistan Masar iyo Sacuudiga iyo Turkiga kan hadda Iiraan muxuu kaga duwan yahay kii hore Iiraan sakeeda muxuu culays u keeni karaa horey baa loo soo bandhigay laakiin Iiraan waxay uga duwan tahay waa dal qolkiisa ficilkiisa wada socda marka laga tago khilaafaadka iyo ay laftooda inay khalad soo galeen sida kuwan kalaba muslimiintu way khalad u soo galeen halkaasna waxa la dhigi karaa in muslimiinta la adeegsanayay dal walba waqti la adeegsada intii aan dhaxiya noqon lahayn oo anagu isburburin lahayn maxaan طبعا isu difaaci waynay marka waxayna noqonaysaa in mataqaanaa lisdifaaco amniga badda la difaaco dhaqaalaha iyo siyaadada طبعا madax banaanida marka taasna ma ahan marka taxaaluf askari kaliya ma ahan laakiin waa mashruuc oo masiirka ummadda islaamka
waxaana la dhihi karaa dadka qaar waxay leeyihiin ba dhibaatadan jirta oo hadda ka bilaabatay يعني كبلابتي غزة كبلابتي وحويان وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أنا مركع نظارة وحان به كرا أرنتني وأرن وقت السهدة ماضي حقنا يولي هنا شروع دا عالم كأسينيان una badan tahay inay fulayso hadii ay xaniye iska baaraan dalkan carabta hadayna cabsanin waxay u badan tahay mid kale waxaad ku dartaa Sacuudiga waxay ku biireen Sacuudiga Iran waxay ku biireen dalalka BRICS bay ku biireen sidoo kale xiriir waxa la sheegay alliance marka ayadoo taala rabayo Mareykanku wuxuu soo dejiyay heshiis nuclear ah oo nabada isagoo u diidan Pakistan iyo ay xiriirka la yeelatay inay wax ka hesho amaba Ruushka iyo Iran oo BRICS marka waxa loo diidayaa dalalka muslimka in ay difaac sameystaan waxana طبعا iska tabiici oo waxbaba ahaan in hadii muslimiinta la burburiyo la cuno ay iska caadi tahay hada maalin dood waxaad arkayseen nin loo yara waa طبعا ma soo dhigi karo nin loo yara oo طبعا ay BBC wareysanayso oo yahuuda wuxuu leeyahay halka nin oo yahuudka wuxuu u dhigmaa 10 bilyan buu dhigmaa way ku celinaysaa gabadhu waxay leedahay taasi may raysteen laakiin ilaahay baana doortay yani ilaahay kuma dooranin noocan dadkii la doortay waqti hore bay ahaayeen dadka marka noocaas ah waxaad garanaysaa in la heshiiyo inay adag tahay mustaxiil tahay saasoo kale wuxuu ku siinayaa marka shuruucda caalamku waxay ku siinayaan isdifaacdo dadnimadu waxay ku siinaysaa in isdifaacdo muslimiintuna waqtigan ay haystaan jaanis waqtigan hadda nidaamku burburayna waa wadamo qaar waa طبعا waa khadkay ka baxayaan kuwii midoobana way badbaadayaan marka waa tilaabo sax ah hadii xataa anaga Soomaaliya ay dan noo tahay oo naga heebeysanayaa hadii la helo dawladda muslim oo taxaaluf hadii la hela in wax lagu yeelo iska dhaafay waa laga heebeysanayaa waana mid maqan oo dal walba u baahan yahay kuwa la dudumiyay Soomaaliya ugu horeysa iyo kuwa hadda la dudumiyay socdo ay ku jirto Iran iyo kuwa loo hanjabayo ay kamid tahay waxa ku xiga ay lahaayeen طبعا wadamada sunniga Turkiya iyo Masar kadibna waxa ku xiga Sacuudi marka maadaama nolol wada socdo Israa'iilkii weynaan ay iska cadahay anagoo cunsuriyada inaga ahaan waa xuquuq ay leeyihiin dadka islaamka ayna mudan tahay hadda in loo dhaqaaqo واتاي ادي اد بو ما سين كاسي وحو بروفيسور شافعي او مقدشو توسنا ugu warramay isagoo jooga falanqeeye siyaasadda caalamka aad baad ma santa بروفيسور barnaamijkeena qodobkaas ayaa ugu dambeeyay adikuna fakar iyo aragti waxa qabtaan noo soo qoro qodobkaas leedihiin aragtidiina waa ku beeri kartaan inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka